mucaaradka Soomaaliya gaar ahaan xubnaha saami qaybsiga la wadaaga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay magaalada Muqdisho kula kulmeen maanta duqowda dhaqanka dhinaca kale Xasan Sheekhna waxa uu tagay GSB-da ururkiisa wuxuuna kala hadlay hanaanka doorashooyin qof iyo cod xubnaha mucaaradkii waxay u sheegeen odayaasha duqowda dhaqanka in la gaaray barta kala dhaqaaqa iyo xilligii Soomaalida la isku dooni lahaa waxayna sheegeen in 15 bisha May wixii ka dambeeyay Xasan Sheekh Maxamuud iyagu isku mustawa siyaasadeed iyo waliba sidoo kale isku xasaanad ay yihiin oo yahay madaxweyne hore ayna doonayaan in ka hor heshiis laga gaaro xaaladda siyaasadda ka kan ee Soomaaliya waxay ka ahayd xubnaha mucaaradku sida ay sheegeen xujeynta duqowda dhaqanka ee saami qaybsigooda si aysan berito ugu helin marmarsiyo loogana gar helin oo ah inay keeni waayeen aragti kama dambayso oo miiska iyo duqowda inay dhex gasho ay codsan waayeen mucaaradku waxay doonayaan inay xujo ku oogiddan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee odayaasha dhaqanku ay noqoto mid ugu dambeynta Xasan Sheekh iyo duqowdu ay sarkaan madaxweyne Xasan Sheekh uma badna inuu wax ka dhageysto odayaasha dhaqanka umana arko inay noqon karaan halka ka joojin karto qorshihiisa la xiriira doorashooyin qof iyo codka xujo ku oogidda dhinaca odayaasha dhaqankuna waxay aadi doonaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka raadin doonaan ballan siyaasadeed iyo la kulan iyo inay ka helaan wadiiqo kama dambaysa oo doorashooyinka dalka la xiriirta inuu dhulka dhigo umana badna dhinacaas in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhinacyadan ay ka soo helaan oo ka soo faa'iidaan ha yeeshee waxa durba soo baxay xogo sheegay in madaxweynuhu uu doonayo xubnahan inuu la meereysto si uu waqti dheeraad ah uga helo una cadeeyo in 15 bisha May ka hor iyo kadib wada hadaladu ay noqdaan kuwo furan taasoo madaxweynuhu uu ku soo caanamaalay 3 sano ee la soo dhaafay kuwaas oo dhammaan dhinacyadu ay ku haysteen wax ka bedelka dastuurka hanaanka doorashooyinka mudadaafka dowlad goboleedyada iyo jihada siyaasadeed Soomaaliya ay socoto ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho dhinaca kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sii wadaa toobiyihiisa la xiriirta qabashada doorashooyin qof iyo cod xisbigiisa GSB ayuu la kulmay xubnaha folaadka arinta koonfur galbeed ayaa maanta soo dhamaatay waxaana uu qalab qaadanayaa dhinaca kale arinta galmudug iyo in doorasho qof iyo cod oo kaliya laga shaqeynayo ayuu madaxweynuhu xisbigiisa u sheegay wuxuuna sheegay in taas ay noqonayso toobiyaha kama dambaysta ee nidaamka doorasho ee dalka lagu wajahayo khudbadeer oo madaxweynuhu xubnaha xisbigiisa uu jeediyay waxa uu tilmaamay inaan marnaba laga weecin karin tubta doorashooyin toos ah oo ay ku soo baxayaan xildhibaanada labada heer deegaanka iyo baarlamaanka ee laga qaban doono Hirshabeelle Galmudug iyo waliba sidoo kale koonfur galbeed isdiidooyinka iyo kulamadaas ka soo horjeeda ee Muqdisho waxa ay foolaad u yihiin 30 maalin ee nagu soo socota sida ay u ekaan doonto xaaladda caasimadda madaxweyne Xasan Sheekhna waxa uu dhexda kaga jira ayaamahaasi dhamaadka muddaxileedkiisa 3 qodob oo hor yaalahay ma ku dhamayn doonaa 20 ka cisho ee fooda nagu soo haysa timin gaar ah ee ku eegaynaa ku soo dhawow Daarul Asnaan Dental Clinic xarunta daryeelka ilkaha oo tayo sare leh war farxad leh adeegyada casriga oo ay ka mid tahay beerista ilkaha ayaa hadda diyaar ah Hindiya inaad aad uma baahnid Garowe iyo Boosaaso aad ka heli kartaa ilka maqan Daarul Asnaan Dental ayaa ku haya hal waar oo caafimaad leh